بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. qaybta ugu dambaysa waxaan ku sharxi doonaa adeegsiga buugga jawaabaha. imtixaanada dugsiyada ay qaadaan iyo kuwa heer qaran waxay ku kala duwan yihiin. imtixaanada dugsiyada ay qaadaan waxaa lagu qaadaa warqado, waxaa laga yaabaa warqadahaas in ardaygu ugu kor shaqeeyo imtixaanka. laakiin imtixaanka heerka qaran wuxuu leeyahay buug la yiraahdo buugga jawaabaha. buugga jawaabaha waa meesha uu kusoo manguurinayo ardayga jawaabta su'aalihii la soo hordhigay. buuggan waxa uu ka kooban yahay warqado dhowr ah, wuxuu u samaysan yahay qaab buug ahaan ah. wejiga koowaad waxa ku qoran meesha kore kood ah ku qoran meesha laydiga yarka uu ku sawiran yahay labadaas sanduuq. ardaygu shaqo kuma lahan, waxaa iska leh qaybtaas guddiga imtixaan sixidda oo waa halkii uu ku qorayay number sireedka ardayga si la isu waafajiyo hadhowtii numberka meeshan ku qoran iyo numberka la siin doono warqadaha uu ku jawaabay, si ardaygu hal arday uu u noqdo natiijadiisana hadhow iyadoo magac la'aan ah loo saxo. marka taas shaqo kuma lahan. qaybtan midigta ah bidixda ah ee qoraalada ay ku qoran yihiin waxaa ku qoran 10 qodob. 10ka qodob ardayga waxaa la rabaa inuu akhriyo, waa tala bixino. tala bixinadaas waxaa ka mid ah talada koowaad ardayga la siinayo waxaa ku qoran fadlan si wanaagsan oo degan u akhri su'aal walba ka hor inta aadan ka jawaabin. tala ardayga la siiyay waxna habboon inuu ku dhaqmo. talada labaad ee buuggan ku qoran ee ardayga la siiyay waxaa ka mid ah fadlan ka jawaab dhammaan su'aalaha hana ka tegin qaar. in su'aalaha dhan uu ka jawaabo qaarna uusan ka tegin ku qoran. marka su'aalahaas oo dhan waxaa ka muuqanaysa haddii qodobkan sidaa uu qoran yahay inuu ka wada jawaabo dhammaan su'aalaha noocyadooda kala duwan ee loo keeno. talada saddexaad ee ku qoran waxay tahay ku qor dhammaan jawaabaha warqadaha su'aalaha buugga imtixaanka. buugga imtixaanka waa kana ama buugga jawaabaha kan ayaa lagu qoraya jawaab kasta buuggaana lagu qoraya. warqadahaas haddaad ku kor shaqaysid looma gudbinayo guddiga imtixaanka. guddiga imtixaanka waxaa loo gudbinaya keliya buuggan. sidaa darteed jawaab kasta waa in buuggan laga helaa. qodobka shanaad wuxuu sheegayaa fadlan si muuqata u qor lambarada su'aalaha aad ka jawaabtay. lambarada su'aalaha aad ka jawaabtay qor. su'aal kasta lambar ay leedahay lambarkeeda inuu ku hor qoran yahay, waana idin tusi doona gudaha ayay ku jirtaa lambarada su'aalaha meesha lagu jawaabaha meesha lagu qoraayo. jawaab kasta lambarkeeda inuu ku hor qoran yahay la si qofka saxaayo uu u arko jawaabta uu saxaayo nambarkeeda. qodobka kale waxaa ku qoran magacaaga iyo taxanahaaga roll numberka si sax ah oo muuqata ugu dul qor buugga jawaabaha. waa qaybtan waaye, waana sharxi doonaa insha allahu tacaala. ayadana talo waaye, magacaaga iyo roll numberkaaga, xarunta aad ku galaysid, dugsigaaga, maadada aad galaysid, taariikhda, waxaasoo dhan qaybtan waaye. sidaad u qoraysidna waan sheegi doonaa hadduu alla idmo. talada toddobaad waxay tahay fadlan wax calaamad ah ama sumad ah oo loo aqoonsan karo afgarasho ha ku dul qorin buugga jawaabaha. buuggan magacaagana kuma qoraysid gudihiisa, wax baaq ama calaamad ku tusaayana ma ku qoraysid. keliya in laga helo jawaab, wax aan ahayn maaragtay ma ahan ama lama aqbalayo, munaasabna kuma ahan. qodobka 8aad wuxuu sheegayaa fadlan ha isku dayin qish. taas waxay sababi kartaa in darajooyinkaaga la baabi'iyo. wax kasta oo qish ah oo guddiga imtixaanka ama ilaaliyaasha ay kugu arkaan ayaduna waxay keenaysaa in la baabi'iyo oo natiijadaada waxay kama jiraan laga dhigo. sidaa darteed waxaad taqaanid qor, waxaadan aqoonna ha isku mashquulini. qodobka 9aad haddii waqti kuu soo haro iska hubi inaad ka jawaabtay dhammaan su'aalaha. waqtiga kuu soo haray isha mari jawaabahaagii ma ka jawaabtay mise qaar baa kuu dhiman. marka aad hubisid inaad jawaabahaaga dhamaysay waad dhiibi kartaa buugga jawaabaha. qodobka 10aad ku kalsoono naftaada iyo aqoontaada, ilaahayna tala saaro. marka intaas waa talooyin ardayga la siinayo. halkan marka